haddaba maanta laga bilaabo si aynu ugu doodno xuquuqda shacabka, dhalinyarada, hooyooyinka, waalidiinta, taagabka, culimada iyo dhammaan bulshada noocyaheeda kala duwan. La soco barnaamijyo si toos ah kuu khuseeya aanad ku haaban karto hamigaaga, hankaaga iyo himiladaada iyo horumarka nolosha aad ka leedahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maanta barnaamijkeenu waxa uu daaran yahay waayaha adduunka. dunida waxay caan ku tahay oo aysan ka gaboobin markasta nin kastaanba waagu doona ha joogo, nin walba waqtigu uu soo maro inay u dhigto jallaafatooyin iyo caqabado adag oo nolosha uu qalbiga ka hiinraago si uu uga gudbana uu garan waayo. taasina waa caado ay lahaan jirtay weligeed tan iyo maalinkii dunida la soo abuuray ilaa maanta oo aan joogno. balse waxaa isweydiin mudan maanta adiga xaggee ayay xaaladda adduunkula maraysaa. aniga oo TikTok daawanaya ayaa waxaan arkay gabadh gashaanti ah oo aad u qurux badan, run ahaantii dhaayaha qof saaran uu u dhololi lahaa, laakiin soo qoraysa ama isa soo saartay hadallo aad iyo aad qalbigayga u gubay holacyana ka shiday. run ahaantii hadalladaas waxaa fahmi kara qofka ay duruuftaasi haysato oo kaliya ayaa fahmi kara, ama qof waaya arag ah oo hadda ayna haysanin ka soo gudbay laakiin wax badan ka yaqaana caqabaadka dunida iyo garab la'aanteeda ayaa si fiican u fahmi kara. gabadhan ayaa hadalladeeda waxaa ka mid ahaa markaa tahay aabba la'aan, hooyo la'aan, shaqo la'aan, dhaqaale la'aan, garab iyo gacal iyo cid dar ilaahay kugu caawisana aada haysanin, waxaad noqon haysaa sida aan hadda ahay oo kale. allahayow adaa ii maqan. taasi wuxuu ahaa qoraalkii geenyadii Soomaaliyeed ay baraha TikTok ay soo dhigtay. geenyada qiimaha, quruxda iyo qaayaha looga hadhay ayaa ahaan jirtay waqtigii ay Soomaali gobta ahayd mid haddii qalad yar laga galay iska daaye ay xitaa maalin dhahday in ay boqolaal kun oo haliyey oo Soomaaliyeed ay u soo gurman jirtay, balse maanta tii ayaad moodaa inay aysan jirin. waxay caddayn u tahay Soomaali wixii gobannimo la dhihi jiray dhannaa inuu ka dhammaaday. taasna ma aha sabab ay iyaga keensadeen, waa sabab caalamku uu ku keensaday oo caalamka ayaa si toos ah u burburiyay dunida oo dhanna ay isugu tagtay wiiqitaanka quwadda Soomaaliyeed. hase yeeshee iyaguna waxa ay ku bilbileen buda caydhin. dareenka gabadha wejigeeda iiga muuqday iyo ilinta ka quban haysa ayaa iila muuqatay gelgelini god la gala beeshay halka ay Soomaali ku mahmaahi jirtay, oo micnaheedu yahay laygamana horeeya laygamana dambeeya alla mooyeen. dhalinyarada Soomaalida ayaan ku tilmaami karaa wiilkooda iyo gabadhooda run ahaantii dhalinyarada dunida ugu ayaanka daran. taas ayaan daliil cad ooga dhigin karaa inay leeyihiin 5 dowladood oo 5ta Soomaaliyeed la dhaho, laakiin 5ta dowladood ee Soomaaliyeed ayaa ka siman hal dhaqan oo ah inay dhalinyarada muquuniyaan, iska fogeeyaan, shaqada u diidaan, isla markaana ay shaqaaleysiiyaan dadka taagabka ah iyo dadka duqeyda. dadkaasina aysan wax wanaagsan keenina ay ka hadlaan ree hebel, annaga ayaa ka adkaa jiray, annaga ayaa sidan yeeli jiray, annaga ayaa dhici jiray, weligood iyo allahood gacantaanada ayay ku hoos jiri jireen. taasina waa sababaha ugu waaweyn ee Soomaaliya ay u gashay meel kasta oo joogto dunida halka ugu hooseysa oo aan kabasho lahayn, halka dowladaha kale ee caalamku ay ku faanaan in ay dhalinyarada hormariyaan, maskaxdoodana ay soo saaraan, iskuna dayaan inay wadankooda iyo dalkooda iyo dhaqankooda iyo horumarkooda ay wax ka bedelaan. haddaba maanta laga bilaabo si aynu ugu doodno xuquuqda shacabka, dhalinyarada, hooyooyinka, waalidiinta, taagabka, culimada iyo dhammaan bulshada noocyaheeda kala duwan. la soco barnaamijyo si toos ah kuu khuseeya aanad ku haaban karto hamigaaga, hankaaga iyo himiladaada iyo horumarka nolosha aad ka leedahay. haddana sidaa iyo waxaan nigaga tagaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.